madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Yuusuf Axmed Xagar Yuusuf Dabageed ayaa beeniyay in doorashada ka socota beledweyne ay isku khilaafeen isaga iyo madaxweyne Cali Guudlaabe. waxa uu sheegay in go'aanka kama dambayska uu leeyahay madaxweyne Cali Guudlaabe isagoo ballan qaaday in qof gaar ah uusan kursiga xiri doonin. aniga iyo madaxweynahaba kursi kasta isku aragti ayaan ka nahay ayuu yiri. Yuusuf Dabageed oo u warramay laanta afka Soomaaliga VOA ayaa la weydiiyay in uu fuliyo amarra laga siiyo filla Soomaaliya, wuxuuna ugu jawaabay madaxtooyada waa la isaga kacsan yahay oo dadka siyaasadda ay isku hayaan. aniga iyo madaxweyne Cali Guudlaabe madaxtooyada saaxiib ayaa la nahay, laakiin annagu aragtideena ayaan wax ku wadnaa, qof kale aragtidiisa kuma shaqayno. sidoo kale Dabageed ayaa waxa uu meesha ka saaray in farmaajiyo Rooble ay ka codsadeen in dad gaar ah kuraas loo xiro. madaxweyne iyo ra'iisul wasaare ama cid kale nagalama hadlin in kursi qof loo xiro, hadday nagala hadleenna waa habeen idin dhihi mayno ayuu hadalkiisii raaciyay. madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle ayaa sheegay in ay isugu yeereen musharaxiinta kuraas kasta aan weli la doorin ee beledweyne taala. aniga madaxweynuhu waxaan u sheegnay musharaxiinta in ay furan yihiin kuraas kasta ee ay ku tartamaan dhammaantood. ugu dambeyntii Yuusuf Dabageed ayaa ku eedeeyay siyaasiyiin uu sheegay in muddo dheer ay madaxweyne Cali Guudlaabe ka hor taagnaayeen magaalada beledweyne inay hadda magaalada u joogaan qalqalgelinta doorashada. dad in ay iyagu wax boobaan raba shalayna xumaan ka shaqaynaya oo garoonka soo xambadeeyay maalintii uu ka soo degayay madaxweynaha oo 1 sano iyo bar ay ka hor taagnaayeen ayaa hadda magaalada u yimid inay xumaan kale ka shaqeeyaan. taasna kama yeelayno, annaga halkan ka talina xumaan cid ka shaqaysi karto ma jirto ayuu hadalkiisa sii raaciyay.